بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وصحبه أجمعين. سورة الناس مكية وآياتها 6. عشر كأنه عاوح قبل لابن هيا سورة الليلة سورة الناس، أما قل أعوذ برب الناس. وقرآن كالسورة دوغوه الصيدة تفسير كأنه هوس أيو كسو باللابن يا قرآنك. suuraddan suuratu naas baa la yidhaahdaa. suurad walba qur-aanka waxay leedahay magac, shay suuradda ku dhex jira ayaana loogu magac daraa. waxayna ka mid tahay suuradihii ku soo degooday nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markii la sixray oo sixir furkiisii lagu soo dejiyey. waxaa ku sugan magangal ilaahay la magan galo oo acdaada laga magan galo, oo shaydaanka laga magan galo, oo sharta jinniga iyo insiga laga magan galo, oo waswaaska shaydaanka laga magan galo, oo kahaanada iyo waxa xun oo dhan laga magan galo ayaa suuraddan ku sugan walaalayaal. bismillaahi ilaahay magaciis, allahaasoo arraxmaani naxariista caamka ah naxariista, arraxiimi naxariista gaar ahaaneed naxariista, ayaan abtadi'u magaciisa ku bilaaban hayaa. qul waxaa tidhaa yaa ashrafa alkhalqi, ilaahay makhluuquu abuuray nabiga ugu sharafta badanow, acuudu waxaan magan gelahayaa birabbi nnaasi dadka oo dhan rabbigii abuuray, rabbigaasoo meliki nnaasi dadka meligooda ahaa ama boqorkooda ahaa, rabbigaasoo ilaahi nnaasi dadka ilaahooda ahaa, min sharri alwaswaasi midka wax waswaasiya shartiisaan ka magangelayaa dheh, midkaa wax waswaasiyo oo alkhannaasi dhuumashada badan, qarsoomidda badan, libridda badan, dibmaridda badan oo gadaal u baxaya, oo dib u gurashada badan oo dib u guranhaya markii ilaahay magaciisa la xuso oo ilaahay la magan galo ayuu gadaal u guranhayaa oo fogaanaya oo dib u kaaga sikanaya. markii ilaahay xuskiisa laga tagana oodan ilaahay aadan magac bisinka ilaahay ku bilaabanin ama aadan ilaahay ka magan gelin shaydaanka, markaas wuxuu rabo ayuu samaynayaa. alladii kaasoo yuwaswisu waswaasinhaya fii suduuri nnaasi dadka xabadyaalkooda iyo laabyaalkooda iyo qalbiyaalkooda ayuu waswaas iyo tashwiish ku beerayaa, oo min aljinnati jinni iyo wannaasi dadba ka kooban. bismillaahi araxmaani araxiim. qul waxaa tidhaa yaa ashrafa alkhalqi, khalqiga ilaahay abuuray midkii ugu sharafta badnaayow, waa nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam. acuudu waxaan magan gelayaa birabbi nnaasi dadka rabbigoodii, ilaahi nnaasi dadka ilaahoodii ah, waxaan rabaa meliki nnaasi dadka meligoodii ah boqorkoodii ah, ilaahi nnaasi dadka ilaahoodii ah, min sharri alwaswaasi midka wax waswaasiya shartiisaan ka magan gelayaa, midkaa wax waswaasiyo alkhannaasi dib u gurashada badan, ama alkhannaasi libridda badan, ama alkhannaasi isqarinta badan oo qarsoomayo qarsoomidda badan. markii ilaahay la xuso ayuu qarsoomaa. alladii kaasoo yuwaswisu waswaasinhaya fii suduuri nnaasi dadka xabadyaalkooda, oo min aljinnati jinni iyo wannaasi dadba ka kooban. nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu yidhi, waxaad tidhaahdaa acuudu waxaan magan gelayaa birabbi nnaas. haddee dadka rabbigoodii ilaah bay dadka rabbi u ah, ilaahay baa dadka melig u ah, ilaahay baa dadka ilaah u ah. dhammaan tilmaamihii ilaahay bay suuraddu caddaynaysaa, oo waa sifaadka ilaahay ba ay ka mid yihiin kulligood. laakiin tilmaamaha ilaahay iyo magacyada ilaahay magac kasta oo ka mida la odhan maayo magacaani tawxiid buu keenay la odhan maayo. tawxiidku waa hal, saddexna maahan, labana maahan, hal ka badan diin sheegtana lama arko.
meel laga fahmana ma ijidho ilaahay sifaad buu leeyahay tilmaamo iyo magacyaal buu leeyahay 99 magac ayuu ilaahay leeyahay xadiiska saxiixulbukhaari ku sugan wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam inna lilaahi 99 isman ilaahay 99 magac ayuu iska leeyahay faman xafidahaa dakhala aljanna qofkii xifdiya jannada ayuu gelayaa buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam hadda 99ka magac ma odhan karno magac kastaa tawxiidkeena ma odhan karno qul waxaa tidhaa nebiyullaahi moxamedow acuudu waxaan magan gelayaa birabbi naasi dadka oo dhan rabbigii abuura oo maamula meliki naasi dadka boqorkoodii iyo meligoodaba ahaa oo dadka waxa weeye ilaahay rabbiga u ahay baan magan gelayaa dheh de waa rabbigii dadkoo dhan waa abuuray wou maamulaa shu'uuntooda waa tarabiyeeyaa wou nooleeyey asaga iyagoon ahayn buu dad ka dhigay waa u nicmeeyey haddana asaga ayaa irsaaqa ilaahaas baan magan gelayaa dheh baa la yidhi meliki naasi dadka meligooda ahaa oo dadka asagu xukuma oo asagu milkiya oo shu'uuntoodoo dhan asagu u taliya oo qofkuu doono cisi iyo sharaf u yeela qofkuu doonana dulleeya qofkuu doono qani buu ka dhiga ilaahay qofkuu doono faqiir buu ka dhigaa qofkuu doono caafimaad buu siiyaa qofkuu doonana jirre ayuu ku ridaa qofkuu doono caalim buu ka dhigaa qofkuu doonana jaahil buu ka dhigaa qofkuu doono muslim buu ka dhigaa hanuunsan qofkuu doonana mid qalloocan buu ka yeelaa waa melikunnaas waa rabbunnaas waa ilaahunnaas asaga ayaa waxa weeye koonka dhan abuuray ilaahaan asagaa hayno ma jiro cirka asagaa abuuray dhulka asagaa abuuray cirka asagaa waxa weeye 7 samo iska leh dhulka asagaa fidiyey asagaa wax nooleeya awlaadda asagaa keena caafimaadka asagaa keena hanuunka asagaa bixiya waa mucdi waana maanic ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waa midka wax bixiya waana midka wax diida ilaahay wuxuu xugmiyana maxaad u yeesha lama odhan karo sidaas ayay ku dhisan tahay ictiqaadu ahlusunna waljamaaca iyo caqiidada suuban oo islaamkoo dhammi kulligood sidaasay ku dhisan tahay caqiide kale oo saxiix la odhan karo oo sifada nuucaasa khilaafsanna ma i jidho bismillaahi araxmaani araxiim qul waxaad tidhaa acuudu waxaan magan gelayaa birabbi nnaas dadka oo dhan rabbigoodii meliki naasi dadka meligoodii baan magan gelahayaa ilaahi naasi dadka ilaahoodii baan magan gelahayaa ilaahay wixii laga magan gelayo waa tan min sharri alwaswaasi waswaaska shaydaanka midka wax waswaasiya oo mushtaqun min alwaswasa laga soo qaatay shartiisaan ka magan gelayaa kaasoo midka wax waswaasiyo alkhannaasi ee libridda badan alladii caadatuhu an yakhnasa ee yatawaaraa wayakhtafaa wayata'akhara idaa dukira allah ilaahay markii la xuso oo addoonku ilaahay magaciisa uu soo qaado wou dhuumanayaa shayddaanku addoonku markuu musqusha gelayo oo uu ilaahay xuso wou ka cararahayaa markuu cuntada cunayo ilaahay uu xuso wou ka fogaanhayaa markay sawjadiiyo sawjku wada kulmayaan oo ilaahay uu xuso wou ka fogaanhayaa markuu wax cabbayo oo ilaahay la yimaado magaciisa wou ka fogaanhayaa laakiin haddaad xuska ilaahay ka tagto markaas ayuu waxa weeye wax kugu soo tuurayaa qof walba ayuu la socdaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qof kasta oo ilaahay abuuro qariin buu leeyahay shayddaan baa ku daba xidhan oo ilaahay u sameeyey adigu ma leedahay baa lagu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaas buu nabigu yidhi nacam anugu xataa waan leeyahay laakiin acaananiyallaah ilaah baa ii gargaaray ilaahay baa shayddaankii iiga gargaaray ilaahay shayddaankayga muslim buu ka dhiguu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa qariinkayga aniga ila socdaahi oo qariinka ii hollay daba dhigay waxaan khayr ahayn ifari maayo
shaydaanku wuxuu yidhi nabigu xadiis kaloo saxiixulbukhaari kitaabka ku sugan inna shaydaana yajri min ibni aadam majra dami ayuu yidhi dhiiggu meeshuu maro ayuu marayaa wax kastooo fidnaahu kula daba jooga salaadda markaad gasho wuxuu kugu ridayaa waswaas iyo tashwiish buu kugu ridayaa shaydaankuna mid dadkaana waa leeyahayo min aljinnati wannaas baa lagu dhihi doonaa sida aayadda u dambaysa waxa weeye dad waswaas bay kugu ridayaan qalbigiibay waswaas kaaga abuurayaan salaaddii markaad gasho tashwiish buu kugu furayaa salaaddii intaad tukataad garan weynaysaa adduunyo ayuu kugu mashquulinayaa xisaab ayuu ku gelinayaa wuxuu rabaa inaad khushuucu kaa tago inaad salaadaada dhanba aad ilaahayaad la hadleh makhluuqi ayaadna mashquul ku tah ilaahay baad ku odhanaysaa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin mana ogid waxaad xataa akhrinayso marka bahalkaas cadow weeye ha lala dagaalamo cadow buu nugu yahay sida qur-aanku noo caddeeyey inna shaydaana lakum caduwun faattakhiduuhu caduwan buu ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala shaydaanku waa cadow buu idin yahay ee adinkuna cadow ka yeesha innamaa yadcuu xisbahu liyakuunuu min asxaabi saciir wuxuu ugu yeedrayaa xisbigiisa iyo qofkii jidkiisa qaata inay ahlunaar noqdaan ayuu ugu yeedrayaa waa cadow saacad walba ayuu ku daba joogaa intaad nooshahay shayddaanku kaa harin maayo sixir iyo wax kasta oo xun dadka sameeyana asaga ayaa xumaanta tusinaya dadka wanaagga sameeyana cadow buu ku yahay dadka xumaanta sameeyana saaxiib buu la yahay ilaahay marka wuxuuna barayaa sida aan uga xijaaban lahayn oon uga samata bixi lahayn oon uga nabadgeli lahayn inay tahay al-ixtisaamu billaah ilaahay oo waxa weeye ee la qabsado kitaabkiisa iyo xariggiisa ilaahay oo la magan galo adkaarta diintaahoo la magan galo bisinka oo lala yimaado carruurteenna oon ku tababarno gurigeenna oon magaca ilaahay ku xijaabno waxyaabaha oo dhan ayaa diintuna baraysaa walaalayaal alladii kaasoo yuwaswisu waswaasiya fii suduuri nnaas dadka xabadyaalkooda iyo qalbigooda waswaas ku fura oo min aljinnati jinni iyo wannaasi dadba ka kooban buu ilahay lehy subxaanahu wa tacaala labada qayboodba way isku jiraan maxaa yeelay shayaadiinu alinsi waaljinni yuuxii bacduhum ilaa bacdin suqrufa alqawli quruuran buu ilaahay yidhi way jiraan shayaadiin oo insi iyo jinni ka kooban oo waxa weeye labadii nuucba waa ku jiraan meesha weeyi hadda nabigu calayhi salaatu wasalaam waa magan geli jiray suuraddan iyo midda kaleeto noo imaan doonta waa u akhrisan jiray nabigeennu calayhi salaatu wasalaam suuratulfalaq makiyatun wa aayaatuhaa 5 suuraddan waxaa la yidhaahdaa suuratulfalaq waa maki labadan suuradood mid walba maki baa lagu tilmaamay laakiin mufasiriinta xaggooda khilaaf waxaa ka taagan ma maki baa mase waa madani horta maki maxaa la yidhaahdaa maki waxaa la yidhaahdaa maa nazala qabla alhijra walow fii kayri maka intaan nabigeennu calayhi salaatu wasalaam ka soo tegin magaalada ee makal mukarrama oo uusan soo hijroonin qur-aanka qaybtii ku soo degootay maki baa la yidhaahdaa madanina maxaa la yidhaahdaa maa nazala bacda alhijra walow fii kayri madiina nabiga calayhi salaatu wasalaam qur-aanka qaybtii ku soo degootay markuu ka soo tegay mako ka bacdi xataa isagoon madiino joogin ha ku soo degoodo laakiin bacda alhijra qur-aankii soo degoodana madani baa la yidhaahdaa marka suuraddan iyo middii aan soo dhaafnayba inay madani yihiin iyo inay maki yihiin baa la ysku khilaafay laakiin mufasiriinta qaarkood badan baa waxay rajaxeen inay tahay madani waana khilaaf ku jira meesha suuraddan suuratulfalaq waa maki ama waa madani iyo midda horena sidoo kale weeyi waxaana ku sugan tacliim lilcibaad an yalja'uu ilaa xima araxmaan inay addoommadu ilaahay magangelkiisa ay magan galaan ayaa lagu tarbiyaya wayastaciiduu bijalaalihi wa suldaanihi min sharri makhluuqaatih inay ilaahay makhluuqa shartiisa ka magan galaan oo habeenka shartiisa ka magan galaan oo xaasidka shartiisa ka magan galaan oo sixiroolaha shartiisa ka magan galaan
oo bahallada gurguuratada iyo shartooda ilaahay ka magan galaan wax kasta oo shar leh ama ha noqdo sixiroole ama ha noqdo masaskii abeesooyinkii haraamadii dabaqaroofyadii buku socotadii oo dhan wax walba oo shar leh oo makhluuqa ka mid ah shartooda inaad ilaahay ka magan gasho oo suuradahan ka akhrisato ayaa sunno ah maxaa yeelay labadan suuradood waxaa nabigeenna lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam markii gaaladu ay sixreen suuratulfalaq iyo suuratunaas waa la sixray rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa sixirkaas lagu sheegay sixirka sidiisaba waa shay shareecadu ay sugtay oo sugan oo dabcan ficil u dhacay nabigana lagu sameeyey calayhi salaatu wasalaam nubawadiisana aan wax u geysanayn jiritaankiisa inuu jiro oo shay xaqiiqa leh oo jira uu yahay baadil ha ahaadee laakiin wax dhaca inuu yahay sixirku waxaa isku raaceen culamaa ahlusunna waljamaaca wa jumhuuru culamaa'i alislaam waa caddeeyeen bacdulmubtadica inkireen laakiin wa qowluhum laa yahbutu baa la yidhi qowlkooda wax sugan oo la qaadanaya ma aha marka waxa weeye sixirkaas waa xaaraam mana la bannaynba baadil weeye wuxuu ka mid yahay barashadiisa samayntiisa ficilkiisa laa'imaadkiisa rumayntiisa kulligeed ku dhaqmiddiisa bariddiisa ummadda la baro kulligeed waxay noqonaysaa xaaraam qadcan ah oon diintu oggolayn bannaysigiisoo la bannaystana diintaaba looga baxaaba rasuulka marka calayhi salaatu wasalaam sixirku inuu sidaas yahay baa la caddeeyey kabaa'irta waaweyn oo lagu cadaab mutaysto oo lagu naar galo oo jahannabo lagu mutaysto ayuuna nabigeennu ku daray calayhi salaatu wasalaam waa xaaraam waa shay sidaas ah yuhuuddii baa nabiga ku sameeyeen calayhi salaatu wasalaam wiil yahuudda ee ka mid ah oo nabiga gurigiisa ka shaqay jiray ay arrintan waxaa la yidhi ay ka dhigteen wasiilo si kastoo tiraaba way sixreen waxaa arrintan bilaabay oo sixirka nin gaal yahuudda ka mid ah reer banu zurayq oo la yidhaahdo lubayd ibnulacsam ayaa waxa weeye ficilkan bilaabay iyo gabdhihiisii yuhuuddii kalena way ku raaceen sixir bay sameeyeen nabiga shanladuu ku shanlaysa jira iyo timo ka go'ay madaxiisa iyo waxbay soo ururiyeen baa la yidhi markaasay waxa weeye isku xirxireen waxbay gungunteen shanladii iyo timahaas iyo fiidda qobkeeda iyo waxyaaba sidaasay inta isku urursadeen oo gungunteen ay ceel iyo meel u geliyeen baa la yidhi sixir bay ku sameeyeen nabiga calayhi salaatu wasalaam intii muddaabaa sixirkaas iyo dhibkaasu hayday markii dambe malaa'ig baa u yimid labadan suuradood baa lagu soo dejiyey qaabkii loo sixray baa loo sheegay meeshii sixirka loo geliyey baa loo sheegay qur-aanku iskaga daawooylahayay baa loo sheegay meeshiibuu nabigu inta aaday ceelkii lagu duugay oo ka soo bixiyey aayadahan buu akhriyey markuu hal aayad akhriyaba guntimihii mid baa furmaysay kulli sixirkiibuu ka daawoobay mar walba nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixulbukhaarigu siduu qorayo caa'isha waxay tidhi radiallaahu canhaa mar walba oo uu jiifanayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu akhrin jiray ta labada gacmood sidaa isku feer dhigo ayuu akhri jiray 3 suuradood suuradda la yidhaha ikhlaaska oo noo imaan doonta iyo suuratulfalaq iyo suuratunaas 3dan suuradood ou akhriyaa 3dooda markaasuu ku afufaa hooh ku yidhaahdaa wou maryaa jidhkiisaoo dhan ou nabigu marmarinaya calayhi salaatu wasalaam haddana wuu akhriyaa 3diiba jidhkiisuu haddana mariyaa haddana wuu akhriyaa jidhkiisuu marmarinaayay wuxuu nabigu suuradaha akhri jiray calayhi salaatu wasalaam markuu habeenkii jiifanayo bikulli laylatin sidoo kale markii xanuun ou iska dareemo waa isku akhri jira nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu qof jirran u yimaado waa ku akhri jira nabigu calayhi salaatu wasalaam galabkii markuu gaadho waa akhrisa jiray cinda kulli masaa wuxuu kaloo akhri jiray cinda asabaax markii waagu beryo wuxuu kaloo nabigu akhri jiray calayhi salaatu wasalaam dubuura salawaat markuu salaadaha ka baxo intaas oo mar ou nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa ilaa 6 mar weeye ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam suuradahan akhri jiray annaga maxaan marka sunnadiisii maanta walaalayaal ka samaynay
xanuunkiibaa dadkii sheeganayaan shaydaankii shartiisii sixiroolihii kaahinkii dhibkii oo dhan waxa weeye wuu jiraa adduunkiibuu ka jiraa laakiin magangelkii ilaahay noo soo dejiyey waan cabaadaynaa dhib baan la cabaadaynaa xanuunkii baa la sheeganayaa laakiin adkaartii ilaahay noo soo dejiyey niyad suuban inaan ku akhrisanno waa la weysan yahay taas oon ilaahay magan galno oo shaydaanka iyo sharta iyo sixirka iyo fidnada ilaahay aan ka magan galno adkaartan kali a ma aha suurado badan oo nabigu calayhi salaatu wasalaam oo in la akhristo uuna baray baa jirta aayad kursiga uu akhrisan jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam waqti kasta oo salaad kasta ciribteeda in la akhriyaa sunnad ay tahay salaad kasta ciribteeda markii laga baxo in la akhristo labada aayadood ugu dambeeya suuratulbaqaro sidoo kaleeto marka qaybo badan oo qur-aanka waxaa ku jira nabigu oo uu akhri jiray calayhi salaatu wasalaam si joogto ah oo adkaar ahaan loo akhristo xataa gabadha macduurka ah oo markaa ama umusha ah ama xayadka qabta suuradahan saddexda oo nabigu akhri jiray way akhrisan kartaa ayadoo u niyeysanaysa waxa weeye adkaar iyo xijaab iyo awraaddii nabi moxamed akhrinaya calayhi salaatu wasalaam ay u niyeysanaysaa laakiin qur-aankii oo dhan gabadhu ha akhrisato iyadoo macduura la odhan maayo waxaad arkay kuwa ku su'aalaya dugsi baan anugu dhigaa kitaabkii taaban maayo laakiin dugsigii shiiqoo ma dhigi karaa oo gabdhihii qur-aanka ma u meeri karaa anigiioo macduur ah ma aanu arkin xadiid gabar xayd qabta qur-aan ha akhriyo odhanaya ma ana arkin kutubaha waxaa ku qoran inaan gabdhaha macduurkaa loo oggolayn qur-aanka inay akhriyaan ayagoo xayd qaba adkaartan baa laga soo reebay hadda aan sheegayno ayagoo u niyeysanaya adkaar ahaan ay akhrisan karaan inta xaydka ay qabto maxaa yeele salaadiiba qur-aan baa ku jira salaaddiiba tukan mayso xataa salaaddii intay xayd qabto tukayn mayso suuradahan marka sidaas baa looga hadlay kulligaan baa la rabaa inaan sharta ka magan galno akhrisanno xataa nabigu markii uu jiranaay calayhi salaatu wasalaam oo qur-aanka uu bisti ahaay oo geeriyoo rabay oo qur-aankii akhrin waayey caaishaa ku dul akhri jirtay nabiga calayhi salaatu wasalaam marka suuradihii waa kuwaan suuratu naas waa soo qaadannay suuratulfalaq baan gelaynaa marka insha allah bismi illaahi araxmaani araxiim suuratulfalaq makiyatun waa maki wa aayaatuhaa 5 aayadaheeduna waa 5 bismi illaahi araxmaani araxiim qul waxaa tidhaa yaa ashrafa alkhalqi makhluuqa ilaahay abuuray nabigii ugu sharafta badnaayo waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam acuudu waxaan magan gelayaa birabbi alfalaqi subaxa rabbigii iska lahaay oo abuuray oo rabbiga u ahaay iftiinka subaxa falaqa waxaa kaloo la yidhaahdaa waadi jahannaba ku yaallana waa la yidhaha allaha naga badbaadiyo qul waxaa tidha acuudu waxaan magan gelayaa birabbi alfalaqi subaxa ilaahay rabbiga u ahaay min sharri maa khalaqa ilaahay intuu uumay oo dhan shartooda ka magangelaya ilaahay wuxuu abuuray wax alla wax kastoo ilaahay abuuray waa insigii waa jinnigii waa xoolihii waa kor socotadii harraamadii gurguuratadii abeesadii masaskii goodaadadii waxa weeye kulli waxaasoo dhan bahal kasta oo gurguurataahoo ku soconaya oo waxa weeye kor socotaahoo dhulka korkiisa habeenkii ku socona iyo maalinkiiba xoolihii kuwa sharta badan jinnigii oo kaleeto insiga kuwa waxaa ku jira shar badana ku jira weeye oo ama isha kugu cunaya ama si kaleeto dhibku ugu geysanaya shartooda kulli ilaaha laga magan gala feere meeshii ku jidhaa min sharri maa khalaqa maxaa soo gelaya ilaahay wuxuu uumay oo dhan shartooda baan rabbi ka magan gelayaa dheh baa la yidhi wa min sharri qaasiqin habeenka shartiisa aan ilaahay ka magan gelayaa dheh idaa waqaba markii uu madoobaado wa min sharri naffaathaati kuwii afuufidda badnaay ama tufidda badnaay shartoodaan ka magan gelayaa fil cuqadi guntimaha dhexdooda wax ku afuufayey wa min sharri xaasidin midka waxasda shartiisaan ka magan gelayaa dheh idaa xasada markii uu waxasdo bismi illaahi araxmaani araxiim qul waxaa tidhaa nabiyullaahi moxamedow calayhi salaatu wasalaam acuudu waxaan magan gelayaa birabbi nnaasi birabbi alfalaqi subaxa rabbigii abuuray oo milkin hayo weeyaan min sharri maa khalaqa
ilaahay min sharri maa khalaqa ilaahay wuxuu abuuray oo dhan shartoodan ka magangelayaa dheh wa min sharri ghaasiqin habeenka shartiisaan ka magangelayaa dheh idaa waqaba markii uu madoobaado habeenku markuu madoobaado oo mugdi ou noqdo ayaa la yidhaha qaasiq ida ishtadda dalaamuhu weeye waa markii mugdigu ou bato qasaqa waxaa la yidhaahdaa awalu dulmati leyl habeenka mugdigiisu markuu bilow yahay waa maqhribkii maxaa yaele wakhtigaas shayaadiintoo dhan baa faaftou nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam albaabada guryaha u soo xira ilmaha guriga ku soo celiya magaca ilaahay la imaada shayaadiinta iyo balaayada dhammaa markaa la sii daayaahe maqhribkii in ma ahan eray iyo waxun iyo shar iyo lagu maqhribsada ma aha waa in khayr iyo ilaah tuug iyo adaab wanaagsan iyo usluub sunnada nabi moxamed ku toosan calayhi salaatu wasalaam aad guryahaaga iyo carruurtaada ku tarbiyaysaa wa min sharri nafaathaati kuwii afuufidda badnaay iyo tufidda fil cuqadi guntimaha wax ku afuufayey guntimaha ay gungunteen oo nabiga ay ku sixrayeen kuwii wax ku tufaayey oo yahuuddii iyo weye waxa laga sheekaynayaahu shartoodan ka magangelaya iyo qof walboo sixir aasaba wa min sharri xaasidin mid waxasda shartiisa baan ilaahay ka magangelayaa dheh idaa xasada markii uu waxasdo xasadku waa xaraam waa shay aad u xun macnihiisu haddii la soo koobo waa qofku inuu jeclaado khayrka qofkan ilaahay siiyey inuu ka qaado inuu jeclaado weeyaan waxaa qofkii jeclaanayaa an yatamannaa zawaala nicma waa in qofka nicmada ilaahay siiyey ilaahay kaaga soo wareejiyo ama ay ka wareegto oo laga qaado inaad jeclaataa la yidhaha xasad waa xaraam xasanaadkii iyo ajirkii iyo wanaaggii adugu aad samaysatay xasadkaasaa kaa cunaya xasad qalbi xasad ku jiro xikmadu ma buuxiso xasadku wuxuu ahay dembi adduunyada korkeeda ka dhaca dembigii ugu horreeyey waxaana bilaabay qaabiil intuu xasday walaalkii haabiil oo ku masayray gabadhii oo guursaday oo mataanta la aheed ayuu dilay wuxuu kaloo xasadku ahay dembi midkii ugu horreeyo ka dhaca samaawaadka markii nebi aadam lagu yidhi malaa'igtoo dhan u sujuuda ayuu ibliis kibray xasdayna nebi aadam karaamada ilaahay siiyey markaasuu yidhi anigu u sujuudi maayo marka xasad qofka sameeyaahu wuxuu ku dayday shaydaan oo uga dayday dembigaas oo asagu bilaabay wuxuu kaloo ku dayday qaabiil oo asaguna walaalkii xasday xasadku waa shay xun oo xaraamah xasad oo macnihiisa shareecadu jeclaatay baa jidho haddii qofka uu jeclaado qofka kale oo walaalkiisa oo diinta nabi moxamed ku toosan calayhi salaatu wasalaam nicmada ilaahay siiyey wanaagga cilmiga toosnaanta salaadda taqwada ou haystoo kale yaa ku siiya oo cilmiga se u yaqaan yaa kuu bara haddaad jeclaato ama waa qof sadaqa booli ahoo maal leh xoolihiisoo kale yaa ku siiya aduguna aad wax la baxdid oo diinta u kaalmaysid haddii aad istiraahdo shareecadu ma diidayso nabigu waa ammaanay labadaas calayhi salaatu wasalaam laa xasada ilaa fi ithnayn laakiin qofka dhan nicmada in loo quuri waayo caafimaadka loo quuri waayo awlaadda loo quuri waayo faseexada loo quuri waayo cilmiga loo quuri waayo caqliga loo quuri waayo oo la yidhaahdo yaaba ka qaadoo kala wareegaba waa xaraam waana midka shartiisa ilaahay laga magangelayo ilaahay baa laga magangalaa laga cuskadaa inuu shartiisa xaasidka kaa badbaadiyo bismi illaahi araxmaani araxiim suuratu alikhlaasi makiya wa aayaatuhaa 4 suuraddan waxaa la yidhaha suuratu alikhlaas aayaadkeeduna waxa weeye waa 4 aayadood waa maki waxay ka hadashaa sifaadka ilaahay alwaaxid alaxad waxay ka hadashaa ilaahay tilmaamihiis oo kale ah waxaa la yidhaha suuratu alikhlaas nabigeenna calayhi salaatu wasalaam hal mar kale a wuxuu yidhi qofkii akhriya buu yidhi faka'annamaa qara'a bihuluthi alqur'aan waa xadiis imaamu axmed imaamu nisaa'i ay soo saarayaan oo ubay ibnu kacab laga warinayo marfuuca hal mar qofkii akhriya wuxuu la mid yahay qur'aankoo 3 loo qaybiyey
qayb ka mida qofkii akhriyey ou leegyaha baa la yidhi maxaa yeelay qur-aanka wuxuu u qaybsamaa culumtiisu fa ina culuuma alqur'aan halaatha tawxiidun wa axkaamun wa qisasun axkaamta qur-aanku waa caqiido waa axkaam waa qisooyin suuraddan caqaa'idka bisay ka hadashaa iyo sifaadka ilaahay iyo tawxiidka ka hadashaa waxayna ku soo degootay suuraddan sababu nusuulkeedu wuxuu ahay sida ay caddeeyeen mufasiriinta iyo taariikhduba gaalada ayaa waxay u yimaadeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaasay ku dhaheen yaa muxammed sif lanaa rabbaka bal ilaahaaga noo tilmaanay dheheen warbixin naga sii am min dahabin huwa am min fidatin am min zubarjadin am min yaaquutin unsub lanaa rabbaka bay dheheen ilaahaaga waxa weeye noo sheeg annaga ilaahyada aan caabudno oo asnaamta ahoo meel noo yaalla annagaa farsamo annagu aan samaynay weeyi qaar waa dahab qaar waa zubarjad qaar waa yaaquudka xariirta la yidhaahdo waa nuucyo la yaqaano oo kamiyaadkooda iyo jus'iyaadkooda ka kooban yihiin waa lagu tilmaami karaa waa la taaban karaa laakiin adigu ilaaha aad caabudee muxuu yahay aayad suuraddan baa soo degootay waxaa lagu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaad ku tiraa kuwaa dabaallada ah qul waxaad tidhaahdaa huwa sha'niga wuxuu yahay allaahu ilaahay axadun keligii inuu yahay ilaahay waa keli subxaanahu wa tacaala allaahu ilaahay assamadu waa midka danaha loola soo qasdo waa midka loo baahan yahay waa midka ummaddoo dhan sayid u ah wax ka darajo korreeyana aysan jirin waa midka ummaddoo dhan maamula oo ka deeqtoon oo loo wada baahan yahay lam yalid ilaahay waxba ma dhalin oo qolooyinkii dhaheen waxbou dhalaa la anfinayaa wax ma dhalin sida maryamo oo kale walam yuulad lamana dhalin sida nabi ciise iyo cusayr oo kale walam yakun umana ahaan lahu ilaahay kufuwan iyo kufu'an labadaasaa la akhriya kufu'an waa qirada abiicamarka kufuwanna qirada xabsadaan u malaynaya xabsada weyhaa walam yakun lahu ilaahay uma ahaanin kufuwan ama kufu'an waa isku macno wax kuf u ah axadun axad oo kuf u ah oo u dhikama oo ilaahay nadiir u ah oo la asaaga oo ku tilmaana oo ku ficilah oo shabbaha oo ilaahay meelna haba yaraatay uga soo dhowaadahay ma jira weeye laysa ka midlihi shay'un subxaana wa tacaala shay ilaahay shabbahaahi ma jiro waa caqaa'idkiioo dhan baa ku jira suuraddan caqaa'idkiioo dhan baa ku jira caqaa'idka islaamkaoo dhan ayaa lagu sharxi karaa laakiin wakhtiga ayaa nagu dheeraanaya hadda waxa weeye ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala waxaad ku tiraa nabiyullaahi muxamedow calayhi salaatu wasalaam gaalada qul waxaad tiraa huwa sha'nigu allaahu ilaahay axadun inuu keligii yaha weeyaan waa waaxid ilaahay wax shabbaha ma leh wax nadiir u ah ma leh daatada ka shabbaha ficil ka shabbaha tilmaanta ka shabbaha midna ma jirta weeyaan laysa kamaa yactaqidu nasaara bitahliif say aaminsan yihiin nasaartuyo ay leeyihiin saddexu ilaahu ka kooban yahay qaanuun alab waalibnu waalruux sida ay sheegayaanoo ah ilaahu wuxuu leeyahay bianna alilaah halaathatu aqaaniim taas ma jidho weeyaan waa caqiidatu tahliith baa la yidhaahdaa laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha thaalithu halaatha wamaa min ilaahin ilaa ilaahun waaxid ilaah ma jiro ilaa hal xabbo on baa jira wa ilaahukum ilaahun waaxid qul huwa allaahu axad diintu ayadiyaana baraysa shayga wanaagsan oo qof kasta oo muslima inuu ictiqaadiyo loo baahan yahay ayadaa noo sheegaysa weeyaan marka ilaahay waxa weeye waa waaxid daatadoo waaxid ku yahay sifadaba waaxid ku yahay ficilkaba waaxid ku yahay waa waaxid daatiya weliba haddee ilaahyada badan oo iyagu ay sugeen waxa weeye ilaahay waxbuu abuuraa laakiin kuwoodu tisxiga xataa ku degaaya dushooda iskama qaadi karaan afaman yakhluqu kaman laa yakhluq ilaaha wax abuuraa midaan waxaba abuurin mow la siman yahay samadan iyo dhulkan haddii ilaahyo badanu jiri lahaayeen maba jiren way baabi'i lahaayeen low kaana fiihimaa aalihatun ila allah la fasadataa tamaanuc baa imaan lahay wax la yidhaahdo haddii ilaahyo badan jiri lahaayeen midba miduu qabsan lahay koonkan wuu qarrimi lahaa low kaana macahu aalihatun kamaa yaquuluun
idan labtaqow ilaa dilcarshi sabiila marka waxyaabahaasoo dhan baad qur-aankii ka hadla weeye ma itakhada allaahu min waladin wamaa kaana macahu min ilaahin idan ladahaba kullu ilaahin bimaa khalaqa walaa calaa bacduhum calaa bacdin buu ilaah aayad kale ku yidhaahday hadday ilaahay ilma ma samaysan haddii ilaah kala jiri lahay ilaah walbaa wuxuu abuurow qaadan lahay waana isdagaali lahaayeen baa la yidhi qur-aankiiba intaba lagu sheegay marka waxa weeye tanaasucaas baa imaan lahaa ilaahay gaaladu 3 qaybood bay ahaayeen qaar waxay dhaheen ilaahay wuxuu yahuudoo kale waxay dhaheen nin la yidhaha cusayr ibnullaahi wiilka ilaahay waaye bay dhaheen nasaartuna waxay dhaheen ciisa ibnullah nabi ciise waa wiil ilaahay bay dhaheen mushrikulcarabna waxay dhaheen almalaa'ikatu banaatullah intaasoo dhamma waa baadil tacaala allaahu camaa yaquulu alkaafiruun lam yalid walam yuulad ilaahay wax ma dhalin lamana dhalin makhluuqoo dhan ba asagaa iska leh badiicu asamaawaati waalardi annaa yakuunu lahu waladun walam takun lahu saaxiba mabale baa la yidhi sawjiya xaggee awlaadda uga imaanaysaa walam yakun lahu ilaahay uma ahaanin kufu'an wax u dhikama axadun axad oo ilaahay mathal u ah ama nadiir la leh ama tashaabuh la leh ilaahay ma u jiro subxaanahu wa tacaala wax ilaahay shabbahaa ma jiraan adugu gacmaad leedahay lugaad leedahay meel iyo makaan iyo waddan la yaqaan baad joogtaa waad socotaa waa nuuxnuuxsataa waa jirataa zebankaa ku soo maraya mar ilmaad aheed mar dhallinyaraad tahay mar waayeel baad noqee mar faqiir baad tahay mar qani baad noqonee mar waad nooleed mar waad geeriyoonee taqayur xawaadithu samaan baa ku soo maraysa xawaadithu samaan waxa la yidhaahdo zemankan isbedbedelaya oo maalinba xaalo soo maraya ayaa dushaada soo maraya adiga laakiin ilaahay taas ma ku dhacaydo sidaadoo kale laysa ka midlihi shay-un ilaahay wax lamidihi ma jiraan wa huwa asamiicu albasiir subxaanahu wa tacaala xadiidu alqudsi waxaa ku sugnaay yaquulu allaahu caza wajalla ilaahay wuxuu leeyahay kadabanii ibnu aadam baa i beeniyey walam yakun lahu daalika arrintaasu ma u bannaana inuu i beeniyo washatamanii wou caay walam yakun lahu daalika mana u bannaana fa amaa takdiibuhu iyaaya beeninta ou i beeniye waxa weeye buu ilaahay yidhi fa qowluhu lan yuciidanii kamaa bada'anii waa bini aadamkii ilaahay inkiraayey ayaa wuxuu yidhi ilaahay sow marka hore ii bilaaba ima soo celi karo waa beenintaas walaysa awalu lkhalqi biahwana calaya min icaadatihi maxaa yeelay anaa marka hore abuuray soo celintiisu iigama adka abuuriddiisii wa amaa shatmuhu iyaaya fa qowluhu ittakhada allaahu waladan ilaahay baa ilmale buu yidhi bini aadamkii hadda waa caytaas wa ana axadu lsamad waxaan ahay buu yidhi ilaahay ilaaha axadka oo danaha loola soo aado alladii lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufu'an axad marka suuraddaanu sidaasay dhammaan caqaa'idka islaamka ayay ka hadashaa suuratulikhlaas baa la yidhaahdaa asxaabtii rasuulku way jeclaayeen maray qaybaa ilaalo u baxday ninkii ra'iiska u ahay ama amiirka mar walba oo salaadda uu tujinaya saxaabta oo faatixada uu akhriyo wuxuu ka bacdi akhri jiray suuraddan nabigay u soo sheegeen calayhi salaatu wasalaam su'aala buu yidhi muxuu u akhriyaa waa la su'aalay markaasuu wuxuu yidhi waxaan suuraddan mar walba u akhriyaa sifaadka ilaahay bay ka hadleh ilaahay baana jeclaha buu yidhi saas baan u akhriyaa ikhlaaska nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaaha aad jeceshahay u sheega buu yidhi ilaahay uu jecel yahay inuu asna jecel yahay marka suuraddan waxa weeye akhrinteeda waa la badiyaa thawaab fara badan bay leedahay sidaa daraaddeed waad aragteen culamaa'udiinka iyo muslimiintu aad bay u jecel yihiin markay qur-aanka iyo akhrinayaan ikhlaaska ha la badiyo ikhlaas badan ay akhrinayaan marka ikhlaasku waa suurad qur-aanka ka mid ah qur-aanka haddaad halkan suura maantoo dhan aad ku laalaabato mar walbood akhridaba ajir baa kuusii badanaya mar walbood ku laalaabataba thawaabkaa kuusii badanaya marka suuradahan 3 ah oo casharkeenna caawa aan ku qaadannay waa in akhrintooda la badiyaa habeenkii markii la jiifanayana aan dhammaanteen akhrisannaa casharkeenna caawana intaas ayaan ku soo koobaynaa
والله ولي التوفيق والله أعلم بالصواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.